beesha degta deegaanka gobolka Gabiley ayaa si rasmi ah u caleema saaray Chief Caaqil Dayib Cabdi Ciidle xafladan caleema saarka Chief Caaqilkani cusub oo ka dhacday deegaanka Eelginiseed oo ka tirsan degmada Gabiley ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland murashaxa jagada madaxweynaha xisbiga u cudiyay saraakiil ka tirsan xisbigaasi qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka wakiilada iyo deegaanka Gabiley maamulka gobolka Gabiley iyo maamulada degmooyinka Wajaale iyo Arabsiyo salaadiin garaado boqorro cuqaal odayaal iyo garaado aad u tiro badan oo ka kala yimid gobolada Soomaaliland waxaana munaasabadani Chief Caaqil Dayib Cabdi Ciidle lagu caleema saaray ka hadlay suldaanka guud ee gobolka Gabiley Suldaan Ismaaciil Suldaan Cabdiraxmaan waxaana hadaladiisii kamid ahaa Chief Dayib Cabdi Ciidle maan ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay xilka ku asturo xil ballaaran ayaa loo dhiibay xilkana qofka ilaahay saaray isaga ku asturo cid kale oo wax la qaban karta ma jirto bini'aadamku waa waxtar yar waxay ku taraan oo waxtar yar waxtarka weyn waa ka xagga rabbiga ka yimaada intuu isagu istarayo inta ilaahay u tarayo labadaa weyn iminka waxaan bilaabaynaa iyada oo ay xafladda iyo hadalladeedu iska socon doonaan inaan caleemo saarno Dayib Cabdi Ciidle maan oo jiifnimo caleemo saarno baan u malaynayaa Dayib sidaanu caleemo saarno maanta ayaa loo agsoogi doonaa insha allahu tacaala waxaan u ballan qaadaynaa annagu Dayib inaan la shaqayno islaama haddii ay Saleebaan Cabdi Ciidle da'da ku ilmaadeen ahaayeen annaguna jiifka cusub baanu da'da ilmaadeen ku nahay sidoo kalena waxaa munaasabadan iyaguna ka hadlay salaadiin boqorro cuqaal iyo odayaal kuwaasi oo Chief Caaqilka cusub u soo jeediyay hadallo isugu jira ducay iyo dardaaran gabagabadina waxaa munaasabadani soo afmeeray Suldaan Xasan Suldaan Cabdilaahi Suldaan Cabdiraxmaan oo si rasmi ah caleenta ugu daadiyay Chief Caaqil Dayib Cabdi Ciidle sidii uu gacanta noogu soo qabtay bahdan dhaqanka haddaanu nahay oo raggayagii ka dambeeyey ee ay awoowayaashoodii aabbayaashood soo wada shaqaynayaan uu ahaa siduu noo soo gacan qabtaan Chief Caaqil Dayibna maanta anaguna u gacan qabanaynaa waxaa kaloo la ducaynayaa mar haddii halkan mikrofoonka laga yeedhay maadaama aanu shaabadihii oo dhan ugu dhufannay Chief Caaqil Dayib Chief Caaqil Cabdi Ciidle waxaa kaloo la ducaynaynaa gobolkaan u ducaynaynaa haddaan suldaankii guud ee beesha ahay anigoo ku hadlaaya magaciin iyo magacaygaba waxaan maanta haddana bar iyadoo uu noo qaabilsanaa Suldaan Ismaaciil Suldaan Cabdi Caleentii waxaan haddana shaabadii ugu weyneed halkan ku dhufanaya oo shaabadii subulaha ilaa saaxil ku dhufanaya oo shaabadii dadku Wajaale ilaa Tandheer ku dhufanaya oo aan ku dhufanaya shaabadii Xarsin ilaa Xeeb nibaa yidhi maxaa ku lahaayeen aan reerka u aqooni laba guurka ayaa guursaday gabadh labaad buu guursaday markaasaa arrinkii dambe buuqiina ku kacay baa la soo dhex galay markaasuu yidhi aninkayga waxaa garanaya nin laba xaas leh halkii ninkii waa leeyahay aniga maanta xaaladdeeda waxaa garanaya nin aabbihii dhaxlay Mukhtaar Nuux Ibraahim Hon Cable TV Gabiley